faahfaahinta kulan ay la qaateen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ka warbixinta shaqada guddiga ayuu ku saabsanaa ujeedka shirkan jiraayada ay warfideenada u qabatay Xaliime Ismaaciil Ibraahim gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Gudoomiye Xaliima ayaa ugu horreyn ka hadashay sida gudashada waajibaadka guddiga ka saaran gaarsiinta ummadda Soomaaliyeed doorasho qof iyo cod ah ay muhiim ugu tahay in guddiga loo dhiso xarun isaga u gaar ah waxayna baaq u dirtay dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha taageera. Guddiga ilaa maalintii la aasaasay ilaa hadda wuxuu ku daba joogo u raadinayo inuu helo xarun guddigu uu ku shaqeeyo oo si isku mid ah oo isu miisaaman oo ugu wada shaqeeyo xisbiyada oo dhan. Marka waxaan mar kale ku celinaynaa oo mar kale aan ku celinaynaa guddigu dhul weyn uu leeyahay cid kasta oo Soomaaliya oo doorasho dan kale horta inay nagu taageerto sidaan meeshaas u degi lahayn oo xafiisyo aan uga heli lahayn. Waxaan kaloo aad u weydiisanaynaa dawladda Soomaaliyeed in ay ayadana nagu taageerto sidoo kale beesha caalamka iyo taageerayaasha arrimaha dhaqaalaha iyo farsamada ee Soomaaliya ee beesha caalamka ayagana inaysan indhaha iska tirin ay nagu caawinaan. Xaliime Ismaaciil Ibraahim gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sidoo kale faahfaahisay wadatashi ay maanta la yeesheen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. meelo badan uu taabanayo oo doorashada ku saabsanaad ha noqoto diiwaangelinta ha noqoto qodobka ugu weyn oo ahaa dedejinta sharciga doorashooyinka si aan uga wada shaqeyno ha noqoto inay xafiisyo ka furtaan goboladii ay xafiisyada ka shaqeeyaan si howlihii ay ugu dhamaadaan ay doorashada uga qayb galaan. xubno matalaya xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira isla markaana ka qayb galay kulankii maantay ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda kulanka ay la qaateen madaxda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. waxyaabaha aad aan uga wada hadalno waxay ka mid ahayd qabsoomidda doorashooyinka qof iyo cod sidii sharciga doorashooyinka loogu saari lahaa pressure group xisbiyada ah oo aan uga qayb qaadan lahayn in baarlamaanka federaalka sharciga xisbiyada waqtigii ku habboonaa uu ku ansixiyo ee asadibdhic uu halkaas ugu imaanin. waxaan annaga haddaan xisbiyada nahay isbahaysiiyada xisbiyada waxaan naga go'an oo aanu goosanay inay garanayna inay danta dalka iyo dadkaba ku jirto in laga gudbo 4.5 in loo gudbo xisbiyo sida constitutionka ku qoran in aan dadka dib loo ridin mar dambe in ay daruuri tahay dadku inay gartaan inay sahlan tahay nooca doorashada la doortay ee la qaatay. guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku howlan sidii Soomaaliya loogu horgeli lahaa hanaanka doorashooyinka qof iyo cod bilowga sanadka 2021. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.